أنا مودر كي أسوي مانا كي أشدرنا كي أشدرنا بابجي كي مو سوداني أنت هذه بابجي كليين تركي سكريت واه بابجي إن شاء الله هم صوماليا وسيدة وانا ميا سفارة مقلابو كلها كوبر تركي تقوى صوماليا توصل تقوى بابجي هدي العل على ونما تخانا وله نوما كينه هدا لابنو ودن كلا شدانينا انديا دغينا يا انديا دغينا انديا oo Hindiya iyada faqiireen oo bariis cad iyo maraq laga cunaaye تيرو قانا بس كدغينا markaas تيدا كره Adnaan hawo انا وين انا سنه ما هنا ابتي Hindiya lacag ma tal ida bariis cad oo biir ku karsha laga udacay comment ilay udacay baabaji inuu ilaahay wixiis u fududay نو جرمال كمال حن واي بقفك اوبشن مالي ميا wax oo lawyer oo qabsan kara iyo ma jirto jarmalka Yurub wadamada ugu xun ay ku jirtaa sida la sheegay mar walba meesha laga calaacalo waayo Sharmaako ha mideeda kale liyo dhalinyarada joogtay oo intaas oo sano joogaaba stress iyo dhibaato iyo meesha ugu badan oo laga soo sheegto waayo ma fahanti wax walba Yurub wadan ayada ugu dhibaato meesha jarmal shaqo ma laha miya dhalinyaradu ay iyo sharci waxa jira la hayo horta laba sharci ay bixiyaan maqlay sharciga kooda waxa waa mid bil aadnimo la hayo sharci yar oo dadka ay ku wareegaan oo xuquuqul insaanka ay bixiyaan jiro oo qofka bil aadinka lagu talagalo inuu ku dhigtoono ama ku wareerin mid kalena sharciga weyn ka maqlay labada sharci ka jireen maqlay عدنان waa idin soo laabanaa marxaskiga la hadlaya ayo walaalahay labada sharci ay jirtay Sharmaako moogtaa sharci bini'aadanimo la isku siiyaa jira miya oo kan goowaad waa miya nocod ma yara qol insaanka ka dhamaa canano bini'aadanimo sharci la isku siinaa maxaa ka wadaa ma waxa laga yaabaa inuu leeyahay sharci gaagaabaya jirano oo ku safri kartid meel aad ku aadi kartid iyo baasaboorka weyn camal macnaha wuxuu ka waraa sharci oo deganaasho mataqaanaa inuu joogi karo qofku ku shaqaysan karo iyo baasaboorka weyn saas inuu ka kala wadaa laga yaabaa والله هذه بالسعلين شرع ابن آدم كما هنا كان حيوانك حتى هذه السنة هذا بالسعلين يا هذا السعلين حيوانك حتى هذه السنة أوكي ما قلت ابن آدم إيش كلام نيو شو مربى تلفونك كورتورا سوبر asala soo waxa ذكي كورن بعدين يوم ماشي ماليزيا كور ساعة والله أنا هالكان ساعة وعلس إيو قفا لقبت إيو قفا سان إيو محانا العليا ماشان يوروب نما أمريكا نما إيجي واي ساسو إيتا عنصر نمذ كجرت برادر كي عنق وحاق لا عنق وحاق قان عنصر نمذ صبتا كوليه إدقيسيه nolosha kama hadlaayo in la iscusuriyeeyo iyo wadanka dhexdiisa qofka u dhasho oo adiga ku cusuriyeeyo kama hadlaayo haddii aad 100 sano joogto xataa 100 sano sharci ma helaysid never mana ku fikriyaysid 100 sano iska daay abkooga sidoo halkan ku siinay dadka wadanka waxa waaye saddex xumidood waa ma fahanti sax waxa waaye hindi iyo Chinese iyo dadka orang asliga ee kaafiso wada taqaan Malaysia oo Malaysiyaanka dhaladka saxda wadanka u dhashay marka hindida waa abkood oo hindiya ka imaaday oo wadankan imaaday oo wax ku darsaday oo ka shaqeystay oo intaas sano ku noolaa oo ilmo ku sii dhalay ilmihii sii dhalayna hadda joogaan oo sharciyo qaateen sidoo kale Chinese kana wadanka dadka dhisay oo waayo hore imaaday oo lagaada waxa waaye qarniyada hore dad soo galay wadankan sidoo eegay dadku ay kaysiyo ayagana sharciyo dadka Malaysiyaanka marka shaqadooda waxa waa ay maqaayada iyo wax yaani waaweyn oo saas ma sii qabtaan laakiin wadanka magacooda like Malay dad la dhahaale marka wixii kale oo imaado Soomaali ha noqoto Afrikaan ha noqoto wadamo kale ha ka imaadaan way imaanayaan wadanka ku noolaanayaan waxay qaadanayaan kaari qaxooti ama waxay qaadanayaan visa ku joogaan waxbarasho ama caafimaad ama dalxiis kadibna wadanku dib uga laabanaa so intaas moogiye sideeda kale laakiin is okay wallahi billaah meesha hadii macal shaqo bas hadii lahaan lahayd besti aan lahayd sideeda kale laakiin dadkeedii aan qaano ciyalka xaafada isla soo kornay hadda wuxuu joogaa muddo markii la dhaho door iyo 10 sano joogaa ma fahamtay door iyo 10 sano yo ninkaas ina aqaana laga yaabay magaciisa ma taqaana Abudi ma taqaana Abudi
mudduu meesha jooga cabdulli. okay wallahi wajahan ina hay wallahi laakiin magacaas ma hayo balaag ha dad waxa aqaana wadankan 20 sano ku nool 20 sano nin Soomaali ku nool aqaana inta joogo oo ilmo ku dhal ilmihiisa ilmo like hadda guursan rabaan sharci ma jiro kaar qaxootiga safarta laga saaraa waliba si nidaam u noolaanay gaariya wadanay guriga dagay waxa artaa qabsanay like sharci ma jiro laakiin marka qofka wuxuu ku joogaa sharci cadeys jira hadeer taa oo kaleeto maxaa ku joogay warqad shaqo lagu siinaa waxa rabta qabsay niyo laba qaaba jirto qofku wuxuu ku joogi karaa number 1 kaar qaxootigaas markii laga soo tagay number 2 qofku wuxuu ku joogi karaa waxbarasho yacni inuu wadanka jaamacad ka dhigto oo yahay qof jaamacad ku jiro waxay siinayaan visa hal sano ah oo uu bixi karo oo soo laaban karo oo wuxuu rabo sameyn karo waxa ku soo haray laba program kale oo ah dalxiis iyo caafimaadkan I think 3 bilood inuu yahay markuu caafimaadka ku dhamaado waa laabanaysaa dalxiisna ugu jira oo 2 bilood marka waxa jira intaas oo wax dad ku joogin oo markay imaadeen oo dalxiis u imaadeen hadda anigoo kala dalxiis wadankan ku soo galay marka dalxiis ku soo galay visa iga dhacay waa isdiiwaangeliyay markii iyo inta iska diiwaangeliyay warqad waxa haystaa oo appointment saas waa marka warqadaas appointment-iga iyo inta ku joogay wadanka inta aragtay maalintii iyo oo Carlos yaha laakiin qabta yeela gaarigan saara aan ma arkin 2 sano jooga 2 sano may oo sharci leh lagu ogyahay laakiin lagu la socdo